الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maanta waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u yeedhay shir aan caadi ahayn xubnaha golaha wasiirada dhammaan waxaana nuxurka iyo ujeedada ugu weynay waxay ahayd in goluhu uu falanqayn iyo dood xooga ku sameeyo sidii looga hortagi lahaa ama wax looga qaban lahaa dhibaatada qiimo dhaca shilinka Soomaaliland lacagtii Soomaaliland oo isticmaalkeedii uu soo ururayo soo koobmayo madaxweynuhu wuxuu u saaray guddi arrintaas ka kooban bangiga dhexe mas'uuliyiintiisa wasaaradda ganacsiga madaxdooda iyo wasaaradda maaliyadda guddiga madaxweynuhu u saaray waxay sameeyeen daraasad bay baryahan oo dhan wadeen xog ururin iyo talooyin iyo wax la xidhiidha waxay golaha soo hordhigeen maanta muxuu ahaayey aragtiyo xal u noqon kara sidii dalkan looga badbaadin lahaa sicir barar iyo qiimo dhac ku yimaada cumladda qarankani leeyahay dalkani cumladda uu leeyahay ma aha dollar ma aha bir ma aha lacag kale waa lacagta shilinka Soomaaliland waddan walibana wuxuu leeyahay cumladuu leeyahay oo ah astaantiisa ka mid ah astaamaha qaranka waxa aynu markhaati ka wadanahay dhammaanteed oo aan cidina dafirayn in qiimihii lacagta Soomaaliland hoos u dhacay lacagtii sarifka dollarka marka loo eego uu kor u kacay waxa isweydiin leh waxyaalaha arrimaha keenay waxa laga yaabaa dad fara badan inay meelo khaldan ay farta ku fiiqaan anagu waxaanu nahay xukuumaddii waddankan maamulaysa xaqiiqadana cid walba waanu uga xogogaalsannahay cumladdana waa tii aanu mas-uulka ka ahayn haybad inaanu yeelno inaanu dhowro muxuu ahaa waataanu mushaharooyinka qaranka ku bixinno muxuu ahaa arrintaa iyada ah waxaanu u aragnaa oo goluhu uu ka midaysan yahay doodii ka soo baxday in ay sababo dhowri arrintan sababu yihiin kow waxa sababo ah lacagtii adkayd ee dibadaha qarankan ka soo geli jirtay oo yaraatay waxaa ka mid ah lacagtii xawaaladaha oo sanadkiiba dhowr boqol oo milyan dalka soo galaan oo muxuu ahaayey sidii hore ka yaraatay waa ka qayb waxaa kale oo iyadana soo kordhay oo saamayn weyn inagu leh xoolihii noolaa oo ah qaniimaddii aynu lahayn oo ka dhigan shidaalka maanta aynu leenahay oo iyadana la joojiyey dhoofkeeda oo ay naga soo galaan sanadkii dhowr boqol oo milyan oo dollar sidaasoo kale xawaaladahana waxay naga soo galaan dhowr boqol oo milyan oo dollar waxa kale oo iyadana saamayn weyn leh oo aan cidina dafiri karayn xaaladda abaarta ba'an ee muxuu ahaayey iyaduna qayb weyn ka ah arrimahan waxa kale oo laf ahaanteedu saamayn ku leh muxuu ahaayey qaabka loo ganacsatadu doolarka degdega u baahani ay suuqa ay u isticmaalaan oo dacaayad iyo welwelgelin iyo doolar degdega si ay u helaan lacagii Soomaaliland doonayeen markiiba degdeg u xaraashaan kama mid aha sababaha kama mid aha si adag baanu u difaacayna oo muxuu aanu u saxayna dawlad ahaan lacaga dheeraada oo shilinka Soomaaliland ah inaananu suuqa gelin ma gelino waxa markhaati laga yahay 2015 lacagaanu soo daabacnay ma jirto 2016 lacagaanu soo daabacnay ma jirto oo access oo lacag ka dheeraada oo suuqa aanu ku sii daynay ama si xun u isticmaalay ama aanu siyaasado u adeegsanay ama kharashyo dheeraada oo aan budgetka dawladda ku soo aroorin oo aanu muxuu ahaayey isticmaalay ma jiro dawladdu waxay isticmaashay oo keliya miisaaniyadda qaranka lacagaa ku jira lacagaanu xoojinay oo qaranka u xoojinay oo ka soo saaray muwaadiniinta jeebabkooda oo cashuurtii aanu ka ururinay ayaanu ku isticmaalaa baahiyaha kharashka dawladda ee kala duwan hadday tahay mushaharka shaqaalaha kuwa ciidamada kuwa mas'uuliyiinta
mashaariicda horumarinta waxaasoo dhan waxaanu ku isticmaalaa lacagta way isxidhaa lacag dheeraadoo markaa aanu suuqa gelinay oo khilaafay qaacidadii dhimaanka iyo sablayga baahida iyo muxuu ahaayey lacagta suuqa gelaysa ma jirto hase yeeshee waxa sabab u ah duruufaha abaarta xoolaha la joojay iyo muxuu ahaayey lacagihii adkaada oo yaraday scarcity of dollar waxa afka qalaad lagu yidhaahdo iyadoo ay lacagihii qalaadaa noqdeen waxa dibadaha wax lagaga soo iibiyo qaadkaa ka mida maalin walba qaadwalayaashu waxay u baahan yihiin $1,000,000 qaad ay ku beddelaan markay somalilan ku iibiyaan lacag dollara oo adag oo markay si degdega ugu baahan yihiin keeni karta inuu ribix u saaro oo qiimihii kordhiya oo mararka qaarkood dacaayad ku kordhin kara ama baahi ku kordhin kara arrimahaasi waa arrimaha sababta waxaa ka mid a lacagtii somalilan oo muwaadiniintii lahayd ay isticmaali weyday oo ka kalsooni baxday oo ay ka doorbidayaan inay isticmaalaan ama ku hawl yaraystaan lacagaha electronic moneyga ee lagu diro ee qalaadee lagu diro muxuu ahaayey saadka iyo dahabka oo gaadhay sentis in cadayga lagu iibsado kabaha baalashka in lagu bixiyo baska in lagu raaco waxay meesha ka saareen automatically guud ahaanba baahidii lacagta somalilan loo qabay waxay ku siqaysaa in lacagteennii ay noqoto lacagaan loo baahnayn oo markaa dee suuqa lagu soo qobo markay xaaladdu sidaa tahay waxaanu nahay xukuumaddii qarankan u telinaysay ee sifada sharcigaa loo doortay ee lacagta ka mas-uulkahayd ummaddana ka mas-uulkahayd si cadaalada oo xikmad iyo xaq soo reebaannu u maamulaynaa waxaa naga go'an in lacagta somalilan ay dalkan ka shaqayso in ay qiimo yeelato si adag baannu u difaacaynaa inaan lacagta shilinka somalilan la qiimo tari karin si adag baannu uga hortegaynaa in lagu soo koobo goobo yar waannu uga hortegaynaa annagoo arrimaha ka turjubaynaa waxaannu maanta falanqayn iyo dood dheer oo adag oo goluu yeeshay si buuxda waxaannu u qaadanay go'aamo adag oo qadhaadh oo saamayn ku leh muwaadiniinta somalilan oo saamayn ku leh dawladda iyo xukuumadda oo saamayn ku leh ganacsatada shirkadaha waaweyn ee ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee isticmaala electronic moneyga go'aamo dhammaantoodba saamayn ku leh baannu qaadanay oo dhowr iyo 10 qodob ah waxa waajib ah lacagta somalilan shilinka somalilan muwaadin waliba inuu isticmaalo waa dembi qaran in lacagtaa wax lagu iibin waayo laguna iibsan waayo lana isticmaali waayo wuxuu waajibkaasi qabanayaa dhammaan shaqaalaha dawladda ciidamada qaranka madaxda muwaadiniinta kuwa guryaha kireeya kuwa iskuullada leh kuwa meherad dhammaantood waxaa waajibkaa lacagtaa in la socodsiiyo oo niyada la geliyo la aamino lacagtan qaranka cumladda qaranka waxaa muxuu ahaa xukuumaddu ay qaadatay go'aamo muxuu ahaa lagu meel marinayo arrimahaas iyo tabo iyo xeelado waxaa sidoo kale daraasad rasmiya dawladdu ku samaysay oo hay-adihii shaqada ku lahaa soo xaqiijeen lacagta electronic moneygu inay saamayn ku leedahay qiimo dhaca shilinka somalilan iyo isticmaal la'aantiisa iyadoo taa laga duulayo maanta laga bilaabo waxaa go'aan goluhu ku gaadhay xukuumaddu ay go'aansatay in la joojiyo lacagaha saadka iyo iidahabka wax alla wixii ka yar 3 raqam wixii 3 raqam ka yar 3 digit number $100 wixii ka yar $100 wixii ka yar laguma diri karo waqti dhow oo systemka laga saari doono oonu amar adag siin doono shirkadaha leh ee saadka iyo iidahabka telesom iyo dahabshiil group waxaa mamnuuc noqon doona in la diro lacagta wax lagu kala iibsado qof loo xawilo telefoon lagu shubto dhammaan mamnuuc bay noqon doonaan waxa u furan lacagaha intaa ka badan $100 wixii ka weyn wuxuu ahaa waa la isticmaali karaa annagoo tixgelinayna ilaalinayna shirkadaha muwaadiniinta xukuumadda xil baa ka saaran shirkadaha qaranka ee gaamuray ee waaweyn in la ilaaliyo waxay ka mid yihiin jecladaannu maamulayno iyagana waxaa waajib ku ah inay ummaddan u xaq dhowraan inay ummadda u naxariistaan qarankana sumcaddiisa iyo jiritaankiisa dhowraan ribix in qof helo waxaa ka muhiimsan in jiritaanka ummaddan iyo midnimada iyo wadajirka ummadda in la dhowro
sidaa darteed go'aankaasi wuxuu noqonayaa go'aan hor oo la fuliyo bangiga Somaliland ayaa soo saari doona saacadaha ay qaadan doonto inta systemka laga saarayo dabagalkiisana isaga u xil saaran sariflayaasha waxa iyadana go'aamada maanta soo baxay waajib kaga dhigayaan in lacagta doolarka aan lagu sarifi karin $100 wax 7,000 halka doolar ka badan oo u dhigma $100 700 oo kun oo doolar arrimahaas oo dhan dunuub baa ka waajibaysa iyo qawaaniin la fuliyo ayaa ka waajibaysa ruqsado lala noqdaa ka waajibaya cid alla cidii ku tagrifisho go'aamada waxa muxuu ahaayay kamida in xukuumaddu ay isticmaasho xeelado iyo tabo lagu xoojinayo awoodda bangiga dhexe waxa kamida in dawladda la fahanteedu ay isticmaasho lacagta Soomaaliland in lacagta Soomaaliland la isticmaalo oo ay joojiso dawladda lafteedu isticmaalka lacagta adag meelaha looga baahan yahay ee safaaradaha dibadaha iyo muxuu ahaayay safarada madaxda iyo waxyaalo kooban marka laga tago dhammaan in lacagaha la isticmaalo ayaa iyaduna kamida banka awoodiisa la xoojiyo waxa kamida waxaan xoojinaynaa kalsoonida banka Soomaaliland shacbiga Soomaaliland ku qabo si ay lacag u dhigtaan si ay u aaminaan waxaanu samaynaynaa waxa goluhu go'aansaday madaxweynuhuna gudoomiyay in banka dib loo eego boardkiisa xeer banku leeyahay golaha wakiiladu ansixiyay boardna wuu leeyahay board madax bannaan oo dad integrity leh ay weheliyaan dadka madaxweynuhu magacaabo si ay kalsoonida wixii dhaliil dawladda ku aana ay toosiyaan wixii shacbigaana ay kalsooni u siiyaan arrimahaasi waxay noqonayaan go'aamada cusub ay kamid yihiin waxaan ku soo ururinayaa tallaabooyinkaas aanu qaadnay waxaanu ku rajo weynahay inay hakin doonaan ruuxanka iyo dacaayadda iyo humaaga iyo dhibaatada shacbiga lagu hayo ee lagu kicinayo muxuu ahaa lacagta sarifka lacagta qalaad ee lacagta Soomaaliland lagu qiimo tirayo qarankani wuxuu leeyahay cumladda waxa waajiba in cumladda la isticmaalo waxaanu ku fulin doonaa arrimaha muxuu ahaa hab nidaamsan waxaanu ku fulin doonaa dabagal iyo kormeer waxaanu qaadi doonaa tallaabooyin waafaqsan oo ummadan dan u ah qarankan aad iyo aad u mahadsantiin intaad sheegtay dhibaatadii xalkii wasraacsi magacaygu waa barkad maxamuud kaariyo oo ka socda hooyada tamaandhada maanta ku iibinaysa idaacadda ama magaalo ka mid ah Soomaaliland oo kale intaad kalaamooyinka process ay qaadanaysa filinaysa maxay ku sii sugaysaa xal aad u haysaa barkad aad baad mahadsan tahay tallaabooyinkani waa xalkii dhawaa waxaanu wadnaa xuluul fog oo maalin walba mushkilad lacagtii Soomaaliland oo joogsanaysa iyo doolarkii oo kacaya maalin walba ma daweyn karo waa in aanu samaynaa sustainable policy iyo strategy joogto ah qorshe qaran oo joogta oo lacagtani ay qiimo ku yeelato oo ay noqoto lacagta sareysa waa qorshe fog kuwani waa qorshaha dhow waxaan rajaynaynaa inaanu tallaabooyinkan u fulino waqtiyo saacada ku fulino isbedel weyna suuqyada ka arki doontaa saacada soo socda والله مصير